soo dhawaada gabadhan iyadoo ninkan la socota hooyadeedo meeshan taagneed arkaysa kadib intay dhinaceeda soo aaday waxay weydiinayaan waxaan horteeda ku sameynaysa maxaa waaye waxay taagan tahay ninkan iska baro saaxiibkay waaye meeshan waxa u nimaanay inaan ku sheegno inaan mar dhow isguursan rabno hooyadu midaan hadalkeeda ma dhageysanaysa darbaxshi iyo qayl isugu daray laakiin midkii iyada la socdaa qorshe keenay duqo wuxuu ku dhahaa gabadhaada inaa guursado adiga faa'iido kugu jirta ii sheeg maxaa ka faa'iiday weydiinay wuxuu ku dhahaa sida aad ogtahay dhulkan aad degantiin familkayga iska leh marka haddii aan gabadhaada guursado familkayga iyo familkaaga hal mid ay isku noqonayaan wax lacagna ma ninka raba markaas iyaduna waxay taagan tahay haddii ay sidaas tahay anigana qorshaha wataa qorshayga waa inaad dhegeysatiin gabadhan Kristina la dhaho waa gabarta gabdhahayga ugu yar haddana diyaar mu uhi in laga guursado sababtan wax kale ma ahna anigu waan xanuunsanahay waxaan rabaa inay iyadu iga taxadirto wixii aan u baahdana aan u dirsado sidaas darteed adiga waxaan ka rabaa inaad gabadhayda weynta guursato waa midaan marka hadda gabadhayda weynta ma guursanaysa mise waa diidan tahay isaguna maba isii adkeenayo hore ka ogolaanaa midda weynta inuu guursado Kristina meeshii isaga cararay markii go'aanka aragtay mar kale iyadoo jikada ooyin isaga dhex amranaysa hooyadu u iimaanay waxay ku dhahay cunadan aad karinaysid buubsi walaasha iyo aniga gaajaan heese isla markiina walaashida inta u timaaday waxay ku dhahay aniga hooyaday bismanihin ee ninkiigan cuntada ku jiraa buubsi haddana iyadoo miiska cunada la wada fadhiyay midaan walaashid waxay ku dhahay waxaan ka codsanaa maalinta arooskeena waxaa ka rabaa inaad noqotid qofka shaqeynayo howlaha badankooda noo qabanayo iyaduna waa tanay waxay bilaabaysaa inay meesha isaga cararto midkaan isagoo ku marmarsiyoonayo masquula aadaha iyada ka dababaxa iyadoo meesha aan ku jirto uu iimaanaa laakiin iyadu waxay u sheegay inaysan caruusada ahayn sidaas darteed oo isaga laabto miiskiisa cunada meeshana way isaga tagay waxaa la gaaraa marka maalintii ay labadan is aroosi lahaayeen Kristina waa tanay iyadoo heesa hawsha ay walaashid sida qaaska uga codsatay arooskii markii uu dhamaadana midaan hooyadu u iimaanayso iyadoo walwalsan kadib hooyadu waxay weydiinay adigu maxaa u walwalsantahay maalinta arooskaaga waa ma baashashid waxay u sheegay inay labadaas wali isku heestaan ayna ka walwalayso inay isaga iyada wax dhex maraan maamadu waxay taagan tahay walwalin aniga waqti dheer soo noolay qorshe kala kacsana ku haya isla markiiba qorsheedii ay ku dhaqaaqaysaa Kristina jikada ku jirtay waxay ku dhahaysaa waxaan ka rabaa in alaabtan qaadid aan geyso qolka walaasha iyo ninkeeda waatana markii iyadoo qolkii soo gashay kuwan waxay u sheegay inay hooyadeed alaabtan u soo dhiibtay kadib midaan waxay bilaabaysaa inay ku dhaqaaqdo qorshihii ay hooyadeed isla ogaayeen qorshuhu wuxuu ahaa inay ninkeeda caabitaanka ku daldasho laakiin aysan iyadu caabidin sidiina way samaysay dhinaca kale Kristina waxay ahayd mid qabato shaqo kasta oo ay hooyadeed u dirto laakiin maalinba maalinta ka dambeeyay xiriirka labadooda ka dhaxeeya wuu sii xumaanayay maalin Kristina iyadoo shaqadeeda iska heysata waxa uu iimaanay walaasheedo kal iyo laab u faraxsan waxay weydiinay maxaa u faraxsan tahay waxay u sheegay inay uur leedahay iyaduna waa tanahay way isku naxay waxay dhahaysaa maya arrinta macquul maahan aad ka sheekinaysid sidee ku dhacday laakiin haddana inta isbedeshay waxay dhahaysaa sax waay arrintaas way dhici kartaa walaasheedna uurkeeda ugu hambalyeene intay soo baxday midkii saaxiibkeeda uu iimaanaysa waxay u sheegay inuu xadka dhaafay intuu u sharaxo hamiinka ay cabitaanka ku daldalayso arrintaas shilay ahayd ku dhaha 7 bilood kadib midaan waxay ku faraxsan tahay inay 2 bilood kadib dhalayso waxay arkaysaa Kristina iyo ninkeeda iska baashaalayo intay u timaaday waxay weydiinay wax ay ku qoslayaan isaga wuxuu dhahaa wax kale ma jiraan ay waxa tijaabinaya cuntada ay gabadhan karisay kadib maamadii Kristina waxay ku dhahaysaa jikada soo banay gabadhan iyada ninkeeda hadda kadib cunada u karinaysa iyadoo intay xanaaqday ugu dambeyn waxay go'aansanay inay guriga dhanba isaga tagto asbuuc kadib kuwan intay isbitaal yimaadeen waxa loo sheegay inuu cunugi ka dhintay Kristina iyadoo meel luuqa joodar iska dhigato hurdaysa midkan uu iimaana wuxuu ku qancinaa inuu wax walba darteed iyada ugu soo tagay haddana uu diyaar u yahay inay iyada isla noolaadaan ugu dambeyn way ka ogolaanaysaa hooyadeedna waxay u dirtay waraaqad ay ku macsalaaminayso muuqaalkan intaas oo ka ekay hadda halkaas soo gaarto like noosa